kusoo bixi jiray laba qodob ayaa lagu xidhay haatif. qodob wuxuu ku saabsanaa musuqmaasuq ka jiray wasaaradda macdanta. qodobka kalena wuxuu sheegay uu tilmaamayay awood maroorsi dad aan la dooran oo awoodii dalka ku amar taagleynaya. labada qodob ayaanu bayaaminay. labada qodob ayaa lagu qoonsaday haatif. 3 sanadood baa haddaba ka soo wareegay markii haatif la xidhay. dadweynaha Soomaaliland waxaan weydiinaynaa labada qodob wax ma laga arkay mise haatif baa ka gardareed xukuumadda madaxweyne Siiraayo oo ka been sheegaysay mise wargeyska ayaa xaq ku taagnaa oo wixii wax jira ayay ahaayeen. runtii waliba beligaa way sahlanayd 3 sanadood ka hor markii haatif la xidhayay musuqmaasuqu ka yaraa intan iminka xadhkuhu goostay wasaaradda macdanta marka la eego waa taa ilaa maanta mashaqooyinka ka soo baxa waxaan la yiraahdo shidaal baaristu ay maalin walba qarxayaan ee dadka masaakiinta ah ee reer guuraaga ah lagu eedeynayo in ay yihiin reer ka soo horjeeda shidaal baarista iyo horumarka dalka. runtii waa ayaan daro in maalin walba cid gaar ah lagu eedeeyo inay shidaal baaristii ka soo horjeedaan. annagu waxaanu qabnaa inay tahay marmarsiye uu wasiirku kolba ku daboolayo oo ku dadayo musuqmaasuqa weyn ku jiro iyo dhaca iyo boobka uu ku hayo hantida dalka ee uu kolba xaqal qalin dibadda la dhigto uu ka doorbidayo dadkii oo abaarahayaan ayaa geedgeedkii u taagnaa u dambeeyayna laga xagaafaya kaasa la oranaya shidaal baaris baa la sameynaya. xukuumadda waynu ognahay waxa haray dhowr bilood. waa maxay shidaal baarista uu wasiirka macdantu sidaa ugu degdegayo ee uu ciidanka gelinayo kolba beel nabada oo abaarina hayso bal hal la isweydiyo waa maxay ereyaya. annagu waxaanu qabnaa inay tahay waxa ereyaya waxa weeye waa xaqal qalin waa heshiisyadan qarsoodiga oo la galo shirkadaha ee dadweynaha reer Soomaaliland waxba ka ogeyn. tiibaana ka dhamaanaysa oo uu doonaya intii ugu dambeysay inuu faraha ku dhigo. talabaad qodobka labaad aanu sheegnay awood maroorsigii dee waa la wadaogay maanta maana ka khaldanayn. waynu ognahay dad aan la dooran inay dalkan xukuumaan oo awoodii la wareegeen sir maaha waxa weeye daahir ya shams imka awood maroorsiga halku marayo. runtii waana ayaan daro anagu mana qabno in ay sidan ay arrimuhu hadda ku socdaan. haatif baa la xidhay baa la sheegayaa wax ka waaweyn ayaaba dhacayaan oo arkaynaayo annagu xukuumadda iyo xisbiga hantidii xamaade doonaya inay shaar dawladeed oo khasaba kula wareegaan u malayn mayno inay xitaa doorasho hagaagsan ay dalka ka dhici. hadday ka dhacdana waxaanu sida isfifaaluhu waxaanu aragnaa in la isku qabsan doono oo mashaakil iyo is-horkimaad aan loo baahnayn oo xasiloonidoona waxyaala ay keeni doono. kolka dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in waddanka uu runtii khatar ku jiro. Soomaaliland waa inay isu timaado oo arrintan ka tashato. waxa weeye dad aan la dooran ayaa awoodii la wareegay oo waxay doonaan sameynaya oo hantidii gaarka ahayd la bilaabay in la wareego. hadalkeedu ku dheereen maayo labada qodob ee la nagu xidhay ee wargeyskayga la naga xidhay ee xafiiskayga xitaa la naga hor joogo wax kale aan ku qabsan lahayn. laakiin iska xidh hantidan la yani ma kolka waxa weeye ma waan ka xoog weynaa shaar dawladeed baa lagu soo gashanaya wixii la doono in la sameeyo oo law and order ku naga lubo inooma wanaagsana. waxaan qabnaa in Soomaaliland ay u baahan tahay wada tashi weyn oo arrimaheedan ka tashato arrimahan ka waaweyn xitaa xariga haatif masiirkii dalkan loo soo dagaalamay loo soo tadxiyaadka iyo sacrifice-ka badan loo sameeyay in aan la tacab khasaarine
inta ay goor tahay in arrimaha jira wax laga qabto waynu aragnaa saansaan doorasho hagaagsan ku dhacayso annagu ma aragno waxaanu aragnaa in la boobi doono in laga tashado ayaa loo baahan yahay hada wassalaamu calaykum